adiga ma badashid waa lagu dhalay maslax mideeye cunugiisa u celi brada ilma aadan dhalin waxba ha isku nanabiniyo nin raga oo damiir leh uu garanaya xaaskiisa la soo caayay meesha xanuunayso xaraan iyo xalaal waxa uu ku qabo gabadha aniga ii soo sheegay sharma boy cunugan yar ee muqdisho joogana maslax mideeyaaba dhalayba anoo yaaban ciil dartiisa la gariiraniyo ninkaas markuu ayniyo wallahi oo bilaa talaa baan ku yiri jirka ay dubaaxay marka arkay soo milyan ayniyo anoo tii la yaaban waa istajiye ilkaasaan ninkaas ku arkay asigii baan waa ilkaasoo ninka ina adeer arrinkaas soo aniga waxa arki jiray nin rag oo gabar markuu ku xadgudbo xal laga qaadanayo maslax mideeye ayaa dhalay idinkuna waan ogtihiin anigana waan ogahay naag 9 jeer la furay مليون مانك 9 jeer baa la furay sharma boy baana furay mar alla marka uu khamriga soo cabo ana hooyo ahay qalban ninka hadda korbu isoo caayay ano waligiiga aan arag markuu isoo caayay soo caynaya arkay baba sharmiye ilkaas aan isahaynin dad saaxiiba dad walaal ah dad ehel anoo isaynin kan dhowr ma dhicaynaya arkay oo igu xadgudbay maalin maalmaha kamid ilkaas anoo isla socono marka ba waxaan ku aragnaa meel aan ka adeeganayna soo taagan ma fahamtay oo kaliis meel isku canjooqanayo macnaha sharma wax ku qabo iyo ninka isku dhacsantii kulama hadlay rag aan islaamino marqaatiyaal baa leeyahay ilkaas joogay DJ Ferma joogay Adnaan dad badan aa joogay waan dhaqaaqay aqoon hore uma leeyahay ninkaas oo caayaan arki jiray waa u tagay in adeer iyo waran Xuseen waxba ma dareesiin video isla soo duubno umada dhan wada arkaysan taas ka soo tag sidii baan ninkaas kala ahaan ayadoo la joogo arintii Somaliland ee wixii milyan iyo dhaceys waxaan arkay magaalo anoo ka soo laabtay marka Buffalo anoo ka soo laabtay habeen waxaan arkay ninkaano gabadhii live soo furtay oo ku socdo nin raga oo damiir leh uu garanaya xaaskiisa la soo caayay meesha xanuunayso anoo yaaban ciil dartiisa la gariiraniyo ninkaas markuu ayniyo wallahi oo bilaa talaa baan ku yiri jirka ay dubaaxay marka arkay soo milyan ayniyo anoo tii la yaaban waa istajiye ilkaasaan ninkaas ku arkay asigii baan waa ilkaasoo ninka ina adeer arrinkaas soo aniga waxa arki jiray nin rag oo gabar markuu ku xadgudbo xal laga qaadanayo ma fahamtay ama soo fariisto raaligelin ka bixiyo ilkaasaan wacay in ninkaas adan ku arkay adoon in adeerkaaga ku dhow yahay arrinkaas uu sameeyay ama sida ninka isoo kaaya balami iska kaaya horkeen ama soo maahan sababtu ku soo caayay xaaskayga ba u baahnahay ay ana ku soo celinaa goormo caayay ilkaas baxay abaaro iga maqnaa oo soo xanaaqsan warniyo waxaan ana wadi uu ka fanayo ma qabiilkiisa oo caynaa waxaan cid celin kartaa tii anoo la yaaban ship waa isaga dhacay haddana live kaleeto markii dambe waa xanaaqay hees baan ku soo garbaashay marka ninkan cid cishata ma lahan markii la soo aado oo la iska dhiciyana yaa dad baa qabiil ahaan u difaacayo ma fahamtay horta aniga ninkan hadduu qabiilkayga ku xadgudbo iyo shakhsiyadeyda aniga sharma ahaan qabiilna uma caynayo asigana uma caynayo nin raga ah aniga oo caan oo fanaan oo caay maahan wax walbo meesha u fadhiyo laakiin familkayga xaaskayga iyo ilmahayga iyo hooyaday xaraan iyo xalaal waxa uu ku qabo gabadha aniga ii soo sheegay sharma boy cunugan yar ee muqdisho joogana maslax mideeyaaba dhalayba sida saxda maslax mideeye ayaa dhalay idinkuna waan ogtihiin anigana waan ogahay naag 9 jeer la furay milyan maanka 9 jeer baa la furay sharma boy baana furay mar alla marka uu khamriga soo cabo gabadhiisu dilaa xaaskiisa sharma boy waa dilaaniyo ceeb waxaaba ugu fulan sharma boy xaaskiisa wuu dilaaniyo qoorta intuu qabto dabaqa ka tuurayaniyo laad intuu kala daaro oo dhiiqaysto oo cabo oo cirka mara gabadha mareexan silac bay ku jirtaa gabadha mareexan silac iyo gumaysi iyo hoog iyo baabay ku jirtaa